بسم الله الرحمن الرحيم waxaa maanta maalintii labaad inoo soo gabagaboobay diiwaangelintii murashaxiinta madaxtinimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maanta waxaa isdiiwaan gelisay 22 murashax oo u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya taasoo uu shahaadooyinka uu guddoonsiiyay kadib markii ay shuruudaha soo buuxiyeen gudoomiyaha guddiga isku dhafka ah mudane Cabdiqani Geelle waxaa sidoo kale la socotaan shalay inay 10 murashax ay maaragtay soo qadimeen murashaxnimadoodii isla markaana shahaadooyinka la guddoonsiiyay taasoo guud ahaan ka dhigaysa tirada ilaa hadda isdiiwaan gelisay 32 ama 32 sidaa darteed waxaa ka haray in dadku ay isdiiwaan geliyaan ama murashaxiintu ay isdiiwaan geliyaan maalinta berri ah qof ugu dambeyn 4 galabnimo qofkii aan isdiiwaan gelin xaq uma yeelanayo inuu murashax noqdo sidaa darteed ciddii danaynaysa inay murashax noqoto waxaa lagu adkaynayaa in ay ka soo hormaraan berri 4 galabnimo si loo diiwaan geliyo hawshu si wanaagsan ay u socotaa aad bay guddigu u shaqaynayaan diyaargarow fiican ayaa socda waxaan rajaynayaa hawshu inay sii socon doonto insha Allah berrina ay noogu soo gabagaboobi doonto si khayr ku jiro aad iyo aad baa u mahadsantiin